war-saxaafadeed ay si wada jir u soo saareen mas'uuliyiinta golaha federaalka ugu jira gobolada Sool, Sanaag iyo Cayn ayaa waxa ay kaga hadleen dhibaatooyinka ciidamada Soomaaliland ay u geystaan dadka shacabka ay ku dhaqan deegaanadaasi waxayna sheegeen inay caburin ay ku hayaan dadka shacabka iyo saxaafadda ka howlgashay deegaanadaasi. xildhibaan Sharmaarka Garaas Salebaan oo war-saxaafadeedka soo jeediyay ayaa sheegay in si wada jir ay u taageerayaan xildhibaanada laga soo doortay deegaanadaasi dagaalka ciidamada Puntland ay kula jiraan kuwa Somaliland. war-saxaafadeed ay soo saareen mas'uuliyiinta golayaasha federaalka ugu jira gobolada Sool, Sanaag iyo Cayn SSC waxaan ku baaqaynaa in midnimada Jamhuuriyadda Federaalka Soomaaliya ay tahay muqadas dastuuri ah. labo waxaan cadeynaynaa in dowladda federaalka iyo beesha caalamka ay horaba ismadu u cadeeyeen inuusan jirin heshiis dhex maray Soomaaliland iyo dadka degan gobolada Sool, Sanaag iyo Cayn oo ku saabsan kala goynta qaranka Soomaaliyeed. saddex waxaan cadeynaynaa in gobol kale khasab ku xukumi karin waxayna ka soo horjeedaa xeerka iyo dhaqanka suuban ee bulshada Soomaaliyeed iyo xuquuqul insaanka caalamiga ah. afar waxaan cambaaraynaynaa maamulka musabixi caburinta xadhigga iyo baadilka uu ku hayo saxaafadda maantida dadka jilicsan ee gobolka Sool, isla markaana loogu diidayo xorriyadda fikirkooda iyo rabitaankooda midnimada Jamhuuriyadda Soomaaliya. shan waxaan ka digaynaa haddii uu sii socdo tacadiga iyo dhibta dadka Sool, Sanaag iyo Cayn uu ku hayo maamulka musabixi uu ka dhalan karo cawaaqib xumo iyo colaad raagta. toddoba waxaan dowladda Puntland si buuxda ugu taageeraynaa soo celinta deegaanadii hore looga qabsaday laga soo bilaabo 2014, 2007, 2007 ilaa 2018. waxaan ugu baaqaynaa shacabka Sool, Sanaag iyo Cayn inay taageero buuxda siiyaan dowladda Puntland si ay ugu fududaato soo celinta deegaanada maqan. 8 waxaan kaloo ugu baaqaynaa beesha caalamka inaysan keenin talo aysan ka dhalan doonin xal nabadeed oo waarta. 9 ugu dambeyn waxaan dowladda federaalka iyo beesha caalamka ugu baaqaynaa in gurmad ballaaran oo degdeg ah lala gaaro dadka ku barakacay colaadda gobolka Sool. مسؤوليته golayaasha dowladda federaalka ee baarlamaanka soo saaray waxay kala yihiin wasiirka wasaaradda kalluumaysiga kheyraadka badda ee Jamhuuriyadda Federaalka Soomaaliya mudane Cabdiraxmaan Maxamed Cabdi Xaashi, senator Cabdisalaan Xaaji Maxamuud, senator Hodan Maxamuud Ismaan, xildhibaan Cali Axmed Jaamac Jingeli, xildhibaan Axmed Maxamed Axmed, xildhibaan Axmed Ismaaciil Shabeel, xildhibaan Calab Xasan Cilmi, xildhibaan Cabdullaahi Bidhaan Warsame, xildhibaan Daa'uud Maxamed Cumar, xildhibaan Ibrahim Sufisi diyaari waa xildhibaan Sharmaarka Garaas Salebaan Muraale. aad baan u mahadsantihiin. Ciise Cabdi Ciise, Puntland TV, Muqdisho.